doqonnimo naloo maleeyo waa cabsadaan la yiraaho naloo goodiyo dhoolatus la suubiyo wiilal yaryar oo wiilashaanada intay baakaamiin isku soo xiraan jidadka xiraan warar u kaadiyo waryaa islaana waryaa la hadli karo wixii intaas oo dhan loo lahaa dawlad wiilal iyo koox iyo intaba waa ka adag tahay waxay ahayd magaaladan Baydhabo xabad ka dhacday baan diidaynaa hal sano intaasaan la xishoonaynay dhulka la fiirinaynay la tuugtamaynay aan u lahayn waryaa islaan ho nagala hadlo waryaa naga qaban karo dad qorshe leh ajendayaal kale oo siyaasadeed leh waxa aan ka hadlayno waxaan ahayn rabo nabadda aan raadinayna aanan rabin fidnada wax loogu soo sheegay dad kale wax u soo sheegeen yay ahaayeen marka waxaa la huri waayey saraakiisha amnigii bay ka shaqayn waayeen jidkaa loo taagay heer waxaa la gaaray baabuurta socodka qoryaha lagu qabto la yiraahdo noqda madaxweynuhu maxaan sameynaa la xabal lama sameyn karo soo noqda jidkii baa nagala xiray ka soo noqda jid kale ma jira kan kale jira mara meel heblo dhan waa la gooyay hal la gooyo meesha furan mara guri hebel iyo guri hebel iyo guri hebel baa la ijaaray oo min konton baa degan hadda ganaadeen guriga ku jireen guriga ka leexda intaas oo dhan waxa u lahayn waxay ahayd magaaladan intaan oo population dad joogan laba shay darteed horta dhagaxi kor loo tuuro dhul ma dhacay qof binaadin ku dhacay badnida dadka mid labaad magaca iyo sumcadda iyo sharafta aan haysano oo dawladnimada iyo mas'uuliyadda naga saaran dadka inaanan facaysanin wax magaratada oonan lagu sheekaysanin magaaladii nabadda iyo dagaal ka socda intaasan diiday intaasay ahayd intii loo samraayay loo dul qaadanayay saraakiisha ay la daqomoobeen ciidamadii ay la fulayoobeen meel ay u dhaqaaqaan la garan waayay wax la suubiyo la garan waayay maxay marka tan shalay ku dhacday markii wax walba aan ku dul qaadanay yaa waxa la yiri marka hadda maxaa noo haray waqtiga anaga baa la joogaa mashruuc la fulin karo ma jiro suuq xoolo lama dhisi karo canshuur lama qaadi karo jid lama mari karo meel istaagi karo mara see ku dhacday suuq xoolahay ka bilaabanaysaa mana la dhisay canshuurna laga qaadayo ciidankii booliiska joogaa waxay yiraahdeen maxaa jiro ciidankii baa xabad lagu bilaabay laba askari oo booliis oo amniga suuqa sugaysa labadiiba la dhaawacay warnimaya waxday saas tahay bal si kalaan raadinaynay u kaadiye sidii anagu ku joognaa haddana inta la baxay oo la is aruursaday oo la hubgatay oo wixii la soo baxay baa haddana guryihii la galay yaa jidadkii dhagaxaan lagu safay waa ogtiin qof loo sheegay male maanta saraakiishii maxaan sameynaa naftii waxaa la yidhi col loo dooray meel u dhaantay weys meel kaloo la aadayo ma lehee saraakiishii labay mid noqonaysaa nimankiin meeshii amni daradii wixii aan amnigii aan ka shaqaynaynay intaasoo sano inaan nimankan dartood u dayno amni darro ay noqoto iyana aan meesha uga tagna labadaas waa shaqo oo dhan waa soo xirantay saldhigyaan isla taagayn horta dhacdadii shalay dhacday taasay ku dhacday meel kaloo marnaan weyn halkaasna nin aan marqaati ka ahayn male inaan ka baaqsano laakiin waa ka baaqsan weynayoo waxaa looga baaqsan waayey waxay timid dawladnimadii in la yidhaaha maba jirto amni ma jiro cadaalad ma jirto mashruuc ma jirto shaqo ma jirto canshuur ma jirto gaadiid ma jiro in la yidhaaha iyay gaartay meeshaasaan markana gaarsiisay runtii waxaan raalli ka nahay iyo waxaan ku faraxsannahay ma aha waxa aan haynay oon ku soo dadaalaynay oon ku soo tacab iyo tiiro beelnay oon habeenii maalin u taagnayn oo intaan in ka fiican aan gaarsiino rabnay waxay ahayd horumarka iyo nabadda iyo tacliinta dadka reer koonfur galbeed say ku gaari lahaayeen haddii waxaa awalan ah amni haddaanan amni la helin oo aynan nabad imaaninna waxbarashana ma imaanayso cibaadana ma imaanayso horumarna ma imaanayo deganaashana ma jirayso
qaxbaa lagu jiraa sidaas darteedaan waxaan xoog saarnay in amniga laba dhinacba lagu fiiriyo lagu haayo kii wanaag rabana wanaagga loo sheego kii raba in la qanciyo kii wax tabanayo raalli ahow la yiraaho kii ka soo daranay ciidamada amniga ay gacan bir ku qabtaan intaas waa intaan waxaan ku soo gaarnay asadka aan haynana taas ah marka aad iyo aad aan uga xunnahay sida ay shalay wax u dhaceen shaydaan baa ka taliyay waxaas aan sheegnay on tabarta u weynay baana ka taliyay ilaahaygi naga soo dhameeyay baa hadda iskale intii dhimatay Allah u naxariisto samri iimaan Allah naga siiyo waxa ku dhintay xagga ciidamadii wiilashanada haabay ahaayeen waa ka dhimay kugu dhimay waa kan maskaxda laga duursaday oo dadkiisii iyo deegaankiisii iyo dawladdiisii cadow looga dhigay oo beenta loo sheegay oo leeyahay haddii aad kuwan ciirisa adaa madax noqonaysid oo la soo siray maskaxda laga qalday wiilashanadii waa rag shalayto dawladnimada u soo halgamay deegaanka u soo halgamay nala dhashay waa kugu dhimay ka dhimay waa labadaba ku anaga waa kuwa dawladnimada difaacay oo nidaamka ilaalinay oo sharciyada u dhintayna ayagana dawladnimada u dhinteen waa kuwa anaga inta Allah u naxariisto dadka shacabka Soomaaliyeed oo reer koonfur galbeed oo beedaba joogay oo ay wax gaareen daruuftaas gaarsiisay inay wax gaaraan ma rabin horaan u sheegnay ayagana Allah caafiyo dadka dhaawaca ugu booqdaya caafimaad qeyr wallahi siiyo adeega deposit ee bangiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bangiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bangiga Salaam haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta afargees sidoo kale si aad ula baxday lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bangiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxa ay ku wareejsan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan